gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa xalay kulan kula qaatay magaalada Muqdisho qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed sida siyaasiyiinta waxgaradka iyo xubno hore xilal kala duwan dalka uga soo qabtay. Kulanka waxaa la isku weydaarsaday aragtiyo la xiriira hanaanka loo sugi karo amniga caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Ka qaybgalayaasha ayaa halkaas ka soo jeediyay talooyin muhiim ah oo wax looga qaban karo xaaladaha ammaan ee dalka gaar ahaan caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. ka qaybgalayaasha ayaa qaarkood waxay talooyinkooda u dhigeen qaabkan. marka aniga waxaan gudoomiyaha ku soo jeedinayaa in gobolka uu shaqaysto oo hawshiisa qabsado oo shirkadka gaarka oo musuqmaasuqa maaragtay sabab u ah in meesha laga saaro nadaafadda gobolka mas'uulka noqdo oo hawshiisa uu qabsado sida ay ahaan jirtay. ciidamada qoryaha wata iyo dadka shacabka magaalada degan waxaa isleedahay ciidanka ka qeyb qorshe iyo farsamo ay u baahan tahay arrintaas ama mas'uuliyiin hawteen ama ciidamada shay ha aadaan ama ciidamada saldhigyada degan ha aadaan jidadkii ma la mari karo. marka ciidamada hubaysan nooc kastoo yihiin magaalada laga saaro matala 7 degmo ku yaalla magaalada 16 ka mid ah halqabiil madax ka ah markaas macnaheedu waa loo leeyahay meesha waa ka baxaysa marka si uun in loo fiiriyo oo qabiilkaas kaliya hadii la yiraahdo xitaa dadka deegaanka magaalada oo laga soo gaaray hadii la yiraahdo qabiilkaas kaliya xitaa ma qabiilo kale badan ay jiraan hadda Soomaaliya kale loo gelin horta ku local kala tirada badnaa hal wada accommodate gareeyo inta gobol kale dad ka socda la keenin taas ay waa ra'yiga tahay. gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee aan wali xilka la wareegin Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa dhinaciisa waxa uu ka codsaday ugu dambeyn qaybihii kulankaasi ka soo qayb galay guud ahaan bulshooyinka ku nool Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho inay gacan ku siiyaan sugitaanka iyo xaqiijinta nabadgelyada gobolka Banaadir iyo horumarka caasimadda dalka. runtii waan idin mahadcelinayaa كلماتك قيمها بدن سوجي لسين قادة شوحان هين ملها أنا قادة شليه إنه واحد دليل أسانو قديار قروني محايا ليوان قرنيني روح كستو وحي أويري وانو قرنين هادو مركا إنتان ميل فرديستانا شخشقينا وافي الترينينا مركا هدان شخشقنو أيان سيسو لينا نسو راعدونا هدي إلى إرادو محايا لي إن بدن وكميدة si qubana ah ayaa looga hadlay marka insha Allah mid kasta meesha uu lahay anaga gasho doono. Cabdinaasir Maxamed Ali Hon Cable TV magaalada Muqdisho.